وري ودكان أداله وكيل بطه يدورا دبكي سرينو ورابشو حقا وقين هنانكا أمان كان أروح يلين حقا وقين هنانكا أمان كان أروح يلين وري ودكان أداله وكيل بطه يدورا دبكي سرينو ورابشو حقا وقين هنانكا أمان كان أروح يلين حقا وقين هنانكا أمان كان أروح يلين حقق ذاذون كويعا ورحرنين حمانتا بالشذا لو ذاق انتيسن بالشذا لو ذاق انتيسن بالشذا لو ذاق انتيسن بالشذا لو ذاق انتيسن حقق ذاذون كويعا ورحرنين حمانتا بالشذا لو ذاق انتيسن بالشذا لو ذاق انتيسن بالشذا لو ذاق انتيسن بالشذا لو ذاق انتيسن أظن قنكر ورقادي الماما وانا سيشا النقوة لغو أغارتو النقوة دو كدولتو وربها si weyn u bogaadinaya shirka kan dhex maraya booliiska iyo saxaafadda waxaan fahamsanahay in muddadii u dambeysay ama sanadadii hore uu istaagtaag iyo iscayn badan uu ka dhex jiray labadan qaybood oo ka mid ah shaqaalaha dowladda saxaafaddu laftigeedu waa dowladdii ka mid tahay waxaan ku rajaynaynaa in haddeer ay muuqato iyo waxyaalo badan ay meesha ka baxeen oo madmadow horay u jiri jiray muddadan dambe waliba intii hadda uu shaqaynaya cayn sane iyo gruubkiisan cusub oo doorashadii dambe ah gasheen runtii annaga waxaa naga go-an ka booliis ahaan in aan saxaafadda si dhow u wada shaqayno sidaan barina waa jiraan khaladaad dad saxaafadda sheeganaya ay ka dhaca iyo kuwa laftigooda booliiska ka yimaada sidaa la socotaan ciidanka booliisku waxaa la dhihi karaa hay-adda adeeg ee ugu ballaaran ee ay dowladda puntland leedahay weeye markii la soo koobo 200 iyo dheeri goobood oo joogto ah buu ka howlgalaa oo shaqo ka hayaa maalinla ah maalin kasta waxaa kale ogtihiin wuxuu ka yimaadaa booliisku bulshada laftigeeda bulshadana waxyaalo badan baa ka khaldan qabiil baa ku dhex jira waxaa ku dhex jira draagis dhibaato badan oo laga yaabo in shil aan la ogeyn uu ka yimaado saxaafadda laftigeeda dadkaasi ku jira waxaa saameyn ku leh waxyaalaha aan sheegnay qabiilku ugu weeye annaga waxaan diyaar u nahay isfaham fiican in la abuuro in waddanka la wada dhisto in la wada ilaashado in waxyaalo badan laga gudbo hore u jiri jiray runtii muddadan dambe cabsi weyn baa ka jira soomaalida laftigeeda oo dhanba isbeddel baa dadkii ku dhacay dadkii waxay noqdeen dad xun waxyaalo badan baa laga shaqaynaya dhibaato sidoo kale iyaguna waxaa waddanka jooga shabaab oo dhib badan ku haya waxaa sii batay draagiskii waxaa sii batay kufsigii dumarka loo geysanayay waxaa sii batay hubkii oo weliba khaasatan puntland si fiican u soo galay waxaa jira colaado beeleedyo ay abuurto degaamaynta cusub waxaan idinka codsanaynaa inaad si dhiib leh aad noola shaqaysaan si aan u xalilo arrimahaas oo dhan oo booliiska laga rabo inuu wax ka qabto taasi waa codsigeenna khaladaadka isleeyahay way ka yimaadaan saxaafadda laftigeeda waxaa ka mid ah in mararka qaybtood ciidanka ammaanka waxyaalaha aysan samayn laga sheego in amni xumo aysan iyagu haddeer waxba ka qaban karin lagu dhaliilo ila qofka waxa la fiirshaa awooddiisa hadda haddii la yidhaahdo ciidanka booliiska bari maxay al-shabaab uga xoreyn waayeen galgala ma qaban karo waxba kama qaban karo
idinkoo mararka qaybtooda cududaaraya dhaliilaha yaryar oo ciidanka ka jira markaas oo laga yaabo inaysan ka ahayn mabda inaad si degan u saxdaan oo aan ceeb weyn lahayn diyaar baana oo anaga ayaana wax nala ka sheegin ma lihin waxa kaloo mararka qaybtooda khaladaad oo dhaca in ay saamayso arrimo qabiil oo siyaasi marka aan xil hayn oo dowladda ka soo horjeeda inay saxaafaddu taageedho isagoo markaa ama dana dhaqaale ama dana reereed u jabra iyaduna waa dhaliilo jira oo muuqda oo saxaafadda laftigeeda ka jira inkastoo kuwo kale oo aan wariyaal ahayn iska maaragtay Facebook iyo media meelaha wax ku qorta ay jiraan runtii inta saxaafadda caadiga ka shaqeyso rasmiga ah dhaliil badan laysma maage kuma arag waxyaalaha isleenahay waa khaladaad way jiraan oo rabo in laga gudbo sidaasa ka mid ah annaga waxaan sidaan markii horeba idiin sheegay diyaar u nahay in allaale intii sharcigu idiin ogol yahay inaan ladinku xadgudbin in ciidanku isu idinku xadgudbin inaad shaqanidiina wadataan dhaliisha macquulka ah iyo haddaysa xitaa macquul ahaynba marra maysa dhacayso in qof miskiina oo shaqaysanaya oo wariyaha la xiro oo lagu tacadiyo haddii ay dhacdana waxaan ka qaadanaa tallaabo degdega